mustaqbalka dhaqaale iyo kan amni ee Itoobiya ayaa laga muujinayaa walaa xoog leh xilli ay gudaha dalkaasi ka jiraan dagaallo hubaysan oo ka socda dhanka waqooyiga ee u dhaxeeya Tigreega iyo sidoo kale ciidanka Itoobiya isahaysiga qowmiyadaha iyo jiritaanka ku dhisan ee ay wadaan qowmiyadaha dalkaas oo halis gelinaya dhammaanba deganaanshaha iyo dib u dhiska dalka dhaqaalaha ama deynta xoogga badan ee lagu yeeshay dalkan ayaa ayana kor u sii kacaysa waxa ay sahayaan Suudaan oo ay wadaagaan xuduud iskuna hayaan dhul muhiim ah kaas oo ay Suudaan qabsatay 2 toddobaad ee la soo dhaafay dhammaan arrimahani waa kuwa isbiirsaday oo saameyn culus ku yeelanaya mustaqbalka amni iyo kan dhaqaale ee Itoobiya dadka darsa arrimaha dhaqaaluhu waxa ay sifaynayaan in dalkan hadda lagu leeyahay lacagta faraha badan ee deynta ah ay kalifi karto in bilaha iyo sanadaha soo socda uu baaxaadaga dhaqaalihiisu sicir bararka ayaa gaaray halkii ugu sareysay waxaana $100 uu ka gaaray suuqyada gudaha Itoobiya in lagu bedesho 5,500 oo bir taas oo ka dhigan laba jibaar halkii uu joogay 2 sano ka hor dad badan ayaa durba walaac iyo walwal ka muujinaya saameynta dhaqaale ee arrintan ay yeelan karto Itoobiya waxa ay 4 bilood ka hor bedelaad ku samaysay lacagtii ay isticmaali jirtay si aan hore xog badan looga haynin hay'adda lacagta adduunku waxa ay tallaabadaas ku sifaysay inay ahayd mid aysan xog badan ka haynin wasiirka maaliyadda ee Itoobiya ayaana ku dhawaaqay xilli guud isagoo sheegay in sida loo sameeyo si loo badbaadiyo dhaqaalaha loogana guuro lacagtii hore dadka Itoobiyaanka ee inta badan darsa arrimaha dalkooda ee dhaqaaluhu waxa ay ku sifaynayaan in tallaabadaas ay ahayd mid ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu kula dagaalamayay kooxihii ka soo horjeeday ee TPLF oo balaayiin dollar hore bangiyada uga qaatay ka hor intii aysan talada dalka wareejin 2018 dad badani waxa ay rumaysan yihiin in beddelka lacagta lagu sameeyay ahayd dhabar jab dhaqaale oo Itoobiya soo gaaray dhinaca kale waa musiibo kale oo weyn oo ku saabsan deymaha dalkan lagu leeyahay waxa ay gaareen halkii ugu sareysay ayadoo oo la filayo inay kor u dhaafto 65 bilyan oo dollar oo ay ku leeyihiin dalalka caalamka gaar ahaan Shiinaha oo la deynta ugu badan waana dib u dhis dhaqaale warbixin toddobaadkan la sii daayay waxa kale oo lagu sheegay in ay burbureen in ka badan 400 oo maalgashi caalami ah dagaalada iyo isku dhacyadaha qowmiyadaha ku saabsan ee ka jira gudaha Itoobiya ayaa dhabaha u xaaray in balaayiin dollar mashaariic horumarineed oo ku fadhiyay oo maalgashi shisheeye u badan ay meesha ka baxaan dagaalka qowmiyadaha ku dhisan ee u dhaxeeya qowmiyadaha dalkaas waxa uu kale oo dhabaha u xaaray in ay cabsi darro awgeed uga tanaasulaan mashaariic waaweyn oo maalgashi ay samayn lahaayeen dalalka qaarkood dhinaca siyaasadda marka la eego waxa Itoobiya weyday malaayiin dollar oo si bilaah loogu caawin jiray xukuumadda xilka banaynaysa ee uu hogaaminaya Donald Trump Mareykanka waxa ay joojisay malaayiin dollar oo sababa xagga ammaanka iyo horumarinta ay ku siin jirtay dalka Itoobiya midowga Yurub waxa ay hadda dhabaha u furayaan wadiiqo kale oo lagu joojinayo lacagta la siiyo dalkaasi Itoobiya deeqaha caalamiga ee Itoobiya si toos uga hesho dhammaanba wadamada caalamka gaar ahaan reer galbeedka ayaa u muuqda kuwa xaaladoodu halis ay ku jirto maadaama ra'iisul wasaaraha Itoobiya lagu eedeynayo inuu ku xadgudbay xuquuqda aadanaha isla markaana uu galay dagaalo waaweyn oo uu kamid yahay kii waqooyiga dalkaasi Itoobiya lagu qaaday ee kooxda TPLF habdhaqanka iyo tallaabooyinka dhaqaale iyo amni ee Itoobiya waxa ay muujinayaan halis weyn ay soo wajahan tahay taas oo inta xaaladda dalkaasi ay isku bedeli karto mid dagaalo sokeeyo dib u martigeliya bangiga adduunku waxa uu hoosta ka xariiqay in kor u kaca dhaqaale ee Itoobiya aan la filaynin sanadkan aynu ku jirno ee 2020 uuna yahay eber 100% taas oo muujinaysa walwal kale oo xoog badan